daawade haddii aad ku cusub tahay channelka Ilays News fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada xaqiiqada ku salaysan ee aanu sida joogtada halkan idinkula wadaagayno gudoomiyaha xisbiga mucaaridka Wicid Engineer Faysal Cali Waraabi oo maanta ka hadlayay xaflad uu xisbigiisu ku soo dhaweynayay laba musharax oo xisbigiisa iska sharaxay ayaa waxa uu gudoomiyuhu si kul uga hadlay laba musharax oo hore xisbiga Wicid iskaga sharaxay oo uu sheegay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu xabsiga dhigay gudoomiye Faysal ayaa waxa uu sheegay in uu jecel yahay in aan madaxweynaha iskhilaafin balse haddii uu madaxweynuhu uu gurigiisa ku soo doontay waa sida hadalka u dhigay uu iska celi doono gudoomiyaha oo arinta xadhiga labadan musharax si kul uga hadlaya ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa waadi salaam ya dhamaan dadka isku qayb galay xafladan qiimaha leh waxaan si gaar ah u salaamayaa mujaahidiinta dhagaweyne ayaan salaamayaa waxaan salaamayaa mujaahidka kale baasha cabdiyara isna salaamayaa oo isagu baasha wuxuu ina dheer yahay dee nimankii gobolka naga galay dhiiggeena qabay ayuu ilaa iyo Mareykanka eryaniyay waa qofka qura isaga iyo gruubkiisa dadkii gobolkii caruurteena dhiiggoodii faraa ku lahaa ka daba tegay buu ahaa intaasuu dheeraaday mujaahidiintii kale ilaahay khayr ha siiyo ilaahay caafimaad ha siiyo waana hortaamo maanta haddaan gabay garaha waan gabi lahaa maalmahan ma ogtahay laakiin gabayga ma aqaano laa waxaan himiladeydii aan xusbiga u sameeyey 2001 ayaa hortay markaas soo taraysa waxaan islaam marka urga sameysay reer Hargeysa cidka cod badan ma jirtaa islaam ogta laakiin nasiidara waxa dhacay waxaan asxaabta la sameeyey markii dagaalkii sokeeye fooshma laga yimi ee wali aan guddi nabad ahaa marka aniga wax la kala garan waayay ragii dagaal ku jiro waxaan galay foodar waan galay ilaa xajiye ilaa waan galo aniga iyo miraalna kareega galay waayeen marii dagaalka wado baakiiskii baa la igu qaado reer Hargeysa markaan ururka sameeyay aan iri war meesha Arab Sheekh Isxaaq kuma jiro ururkii ma iman Saad Musayma iman Isxaaq ma iman waxba qaldan baan ku yiri waxba qaldan waxa qaldan waa dagaalkii sokeeye qaldan ama ogtahay qaldan aniga waxaan ka reegaray waayay ninkayga nabad waday marka maanta insha Allah taala waa kaaso guri kasta oo Saad Muuse ehel baan ku leeyahay maana ku faano waxaan ku yidhi ceelka Hargeysa ilaa dhagax buur cidiga ehel badan ma jirtaan ku faani jiray tiiba hadda cadaanaysa insha Allah taala waxa weeye anigu inta dalkeen la xoreeyay de qabyaalad kuma haysan waxaan lahaa warisdaaya war wixiina hajista waris jeclaadu ma laha laakiin waxa laga xariibsanaaday bahasha kale qabyaalada taasana shaqeynaysa laakiin tii hadda waa la nacay one time use beeda waqtigeeda way qaadatay maanta waxaan doonaynaa dalkeena hagaajinaa doonayna insha Allah taala aqoon wax ku xoreynaa doonayna insha Allah taala beeshan waa ogtiino xusbiga markan aasaasay ururka Umar meegaas matribaa ku jiro ahaa ragii ila aasaasay ilaahu naxariistay kamid ahaa waxa kamid ahaa raga gacantay siiyay ee intaan xusbiga joogay de marka doorashooyinku jiraan waanu iska shaxaadnaayo baa mishariyan hoos ugu faqnaa wax waan siin jiro de maxaa uu sicid bay u gacan weynaa oo beesha ka dhashay baa weyn maaluutaan madaxweyne Muuse maaluutaan yiri ka cawday lacag la'aantii doorashooyinku markaasaan dawar misharigeena badankooda lacagta leh ninkii isagu lacagta raastoodiga xumeeyay baa inaa wasiiso xumeeyay waan ku ogaa xasan meeyaag samatar ilaa caafaan hasiyeesta waxa weeye markan gudida nabadda abaabuliyay laba bilood u soo fasaqaatay sanad buu ayuu dawladda ka shaqeynayo isagoo raabintu islaam u shaqeeya ayaa xaqdaraan la diray ma alay magacaan ka dhixi jiray isagoo bilaa baasaboor de markaa beeshani markii aan ay yimaayeen beeshi musharax ma leh
ومنحي موتها وحنا اللي دولة مشرحين لقوا أيوة هي هرجيسة مكايل عبد الله سعد لو حلا غلطان ما كل موتها وحنا انتهى كدران مركز يدي باشا عبد الله لودي حسب كل مياه تازا يا بيكنت هذا واحد يبي مجاهد محاور كلي يبي ورماح قصيش وحن ربنا مشرحين والمجاهدين انت ما حق وين بغتبان المجاهدين تو إلهي بحق صوره سبحانه وتعالى دوكا مجاهد إبراهيم واتيو سوق سوق غيب قالي تا كوي صاحل كمو سوق غيب قالين وأنا مجاهد ما كنت أبتر ساوي ده وحوي وجدنا ما أنت وحوي دلكينا هاجاتنا وي استعلانا وي وراريا ده قال كانوا قال لي سوق 20 دلكينا إما واحد لنا وحن تور ملا يدور في وضع ما وضع كرام لنا وحن تاعي ده ما شيء ما بيننا وي وراريا dadkii nala dalkeena la lahaa beeri kala weyn daawanayaan wayna qosbaynu qosliyaan inagu ma isku meeraysanay waxaas waxa weeye hoggaan xum ilaahay hoggaankeena wagaaj subhanahu wa ta'ala maantana waxa wala dhacday doorashadan aad bay u rufatay adduunka lama arag baarlamaan hal teeram la doorto saddex teeram jooga adduunka laguma arag golo isdhaxla oo guurtooda isdhaxla adduunka laguma arag adduunka laguma arag local council waqti ka dhacay oo ilaa hadda shaqeeya lama arag waxaad moodaa inay dowladnimadiiba aynu ku ciyaarnaan gaarkeeda garanayn markaa maalmahan dambe waanu fiicneen madaxweyne muuse uu fiicnaa lacagtii wuxuu yidhi lacagtii aan handaraabka ku xidhay waa anigaa ku qabtay diiwaangelinta ilaahay hala ku siiya baanu idhi haddaad handaraabkii aad inagu qabatay doorashooyinka kii kalena insha allahu tacaala waa kii dikrtadii qoray dee laakiin wuu ka daban yimi oo shalayto u xidhay laba nin oo musharaxiin ah ayuu xidhay de annagu sharcigiina sharci lagu xidhaana ma jiro ummaddu hadday sharci ku kala socon weydo dee way isku qasmisaa dee bahashii waxaa jirta si koo lagu bixi jirayoo marka qofka la afgaran waayo tii soomaalida loo tegi jiro warde reebelow reer hebel ninkii idinku weeye ka soo ninka dalka la hadlo absiyaasiya waxay yidhahdeen ninka ma wada hadalo yidhaaheen ninka ma wada hadalo markaa waxaan noo bannaan garan mayno mujaahidiinta umaan dirna dee ibraahimow haddaad soo dee weydaan de annaga waxaa noo furan markaa inaan mudaharaad samayno waddankana mudaharaad uma bannaana moogta mudaharaadna maanta dalkeena waa laynoo dhex raaciyaa berigii horan ka dii jiray xitaa kulmiye moogta laana waa laynoo dhex raaciya dad aan yaa salaada nagu xidhan iyo aan nala ujeedahayn marka waxaan leedahay ibraahim is-urursada u taga madaxweyne muuse haynagu ceebeenayn labada inad mid waa british waa ingiriis ayuu sitaa maantuu imanaya safiirkii iyo ka wakiilka ahaa haynaga xumeyna siyaasadda 11 caaqil baa u saxay ininkaas waxaa laygu yidhi inankaa raaga aabbihii axmed yuusuf muusuu ku dhaaran jiray waatan muuse waayaaba odhan jiray dadkii cabsanaa buu ahaa moogta dee waxaasan horta abaaldarraasaa dhacday aniga waxaan islahaa muuse kale dembi la'aala daymka na kala meermeriya walaalayaa wallahi waa iga dardaaran abtiyaa naga meermeriya intaa waa shibtaan iska galay wakaa waddankii wuxuu doonaba u sii daynay wakaa shalayta commission directorkeedii bedelay oonu xaqu lahayn waanu iska aamusnay wanaga raac ogolaanay waa iska aamusnay de haddana hadduu u yimaado guriga igu soo galo imaka guriga igu soo gale xusbigu soo gale de waan iska celiyaa hadhowta wanaadaha odhanina faysal oo jooga odhan waa iska celiya inamada waanu qaadanay insha allah waxay noqonayaan qaar waddanka hagaajiyo hargeysa dalka inoo hagaajiya ayaa insha allah noqonayaa xulka maanta waxa wata reer saaxil dee reer hargeysa aan la tartanma reer saaxil aan la tartanma insha allahu tacaala oo dad wanaagsan oo akhyaartan oo kale aan soo saarno maanta wakaasoo inabtigayna waa xusbigu soo galay waa abaabulka halkaa bashiir baa fadhiyo isna waxa weeye waa tacliinta abshir waa kanoo waxa isna ahaa ramaax dee maa kulmiyi halkan buu noqoye dee waa kulmiyo cudur la isku daraye halka warware wasalaam